خذني بايور هاي تاون إن بنتين أنا ولا أسفتر كده يوسف يونس سامي يعني كما أساس كما نشوف فيرنا إنه صوب وقتني ولا يرى للنقط أنا كاميرا أولا تسيست مرة runta iska sheeg maxaa damacsan maxaa yartaad waxna kaamada macsanina iga sakay mar raaliga raali noqola ha taabanin marbi ha taaban adid sagaashan dagaal ma fiicna gacana isku qaadnay waxaas wax ka badan inay dhacaan doonaysa tuka darna ku soo socota aniga ma ka qarinayo straight indhaha kaaga saaraya marka dib u sheeysana waad faraxsanay doob igu qoslaysa marka igu gudinaysa wajigaaga ka arkay laakiin maxay u sameeyeen waxa ka galaaday adi arag maanta hadda waa ku raali gelin mara ha taabanin hotaan bal gacmaha waa riixa ma macna inay xanuunto cusba baranaysa ma hadda waa soo dhayo moogta dawaa lagu soo sii waa in u jeedistaaki ina riixdaas sameeyaa macna raali noqola mara raali caada raali ma ka ahan bay misan kaaga qaadana ma niyadeeda ku jira indhahaaga u jeeda farxada ka muuqata indhahaaga waa waad qoslaysaa halkaana ka caabsataa halka waad ka qoslaysaa miya oylaano oyni miya ku imaan lahaa hadda ma iga kor tagi kartaa hadda ay taabanin maraba saali hawdaada marbi day okay way cud bila hadna ha ka qaldan manad baa ka soo artay bisinki waaba kaa cabsanayaaba inaa sun isiirti dirtidi toori waxay wata ma aqaana cud bila shaadarjin ana guriga ma joogi kari السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. أيه. هاكو دعم. نبيح برادر فريسنا كل شيء. هاك عون. والي الجباب. يا جباب. صوب قال أنا كل شيء جاي. هاكو. هاكو دعم. ساندي. ترتيب. يا جباب. لي مدري والي الجباب. ويتام ضبها. ها نفتي ذا لو صورت مكان كبعدي هيه حاجة لي يا أبوي لو أدعم وضع صادم أوكا حتى أنا ساس ليه لهم وجهي قبلها ما تهلاس محل يا أبوي سبتال اللي أبوي ما له يتحلقان أنا تعبانة محل عن محل يا أبوي أبو هطور إنه حاجرته إن نكان يجي قبي حاي ما ذي ريركيساي ما ذن ويديس يقبل الله تأسيجا هيه imaadeen oo guriga ku soo biireen markay guriga maalinta saas u imaadeen halkaas ay aabi soo galeen waxay ku qaadeen maxay ka dooneen bal dhageyso waxay balan ku qaadeen in aniga la ifuro gurigaas laga saaro maamada iyo gabadheeda iyo ma rabaan inuu ninkan isii qabo oo aan gurigan joogo maamada waxay taagan tahay guriga dahabkaani waxaan ku jirto noloshaan aan ku rabin dahabkaygi aabe iga xadeen hantideeda inta u dhigteen iga xadeen maanta hanti wixii weeba soo dhaaftay nafteeda maraysaa musuqada joogshada xada ha waa adduun rugan hay waxa taas si dhan nafteeda maanta soo dhigteenba saana bal ii gubay maxaa ii haray markii lagu gubayay dabka lagu shubay jeedada laga maxay inay dilaan maxay dhex maray hadal baa dhex maray soo ma ku dhihin aniga noloshaan iyo ma rabaan gurigaana iga saari waayeen dhowr horaan waxay isku dayeen inay ninka igu diraan mar ila dagaalaan ama wax qasaan markay arkeen aniga iyo ninkayga inaanan kala soconin oo ifureenin gabadha waxay go'aansatay inay gubto aab dhageysi hali dambal hebelow geela raad qaad meel magac kaga soo waa sax aniga warka idin sheegay dhaawac caaga iyo dhibka ku gaaray waxaan rabaa meel magac leh inaan ku tiro wax macna leh oo haweenku ay kugu maageen ama lagu eriyaday ama lagu soo galay ama dabkan lagu shubay ii sheeg naagahan waxa ay ku adi aab wadan wax ii sheegtaa gabadhaada dhanaa gubatay guriga lagu qabayaa lagu waxaan rabaa inaan xuquuqdaadii haddii la ku soo galay karaamadaadii joogitaankaagii sharaftaadii inta inaan difaaco وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيادة في عني سودو هي وروح نقول هاي ما توصل ديراتي وروح نقول هاي ما قانع قبل مركز سين لو قله حقيقي ما أنا مجوج المركز وما أبو وشك دبعتي جورجا اللي هو هاي وحوتها جاي وح سماسي أنا وح سمينوها وقتها جورجا اللي هو روا كده دعسي لا يا أبو أدو قبل مركز سين لو قله حقيقي ما أنا دنك هو يوم مقنع هاي إن نورتر قبل maxaa jira xaafadda maxaa ka jira nin weyn baa tahay oo oday ah
rag meeshu jooga waa ku qaangaari maxaa kugu dhacay horta gabadha ay ka sheekeynaysa dhibaatada ay sheeganayso adaa xaafadda jooga oo la nool aniga walaashaa la dhibaataynaya miyaad xishootay siidinimaad yara isu buustaa miya asi gurigaanayd seediu ka yahay muxuu ka hadal weyn kama dhigi karo ani hadda mar dhow baa imaaday guriga haye walaashay way ii sheegtay arrimaha dhan oo meesha ka socda wuu arkay xataa waxay tiri hooyo gabadhaas iyo hooyadeed waxay rabaan guriga inay iga saaraan taas waxaa ugu dheer hooyadiisa gacan ii qaadi dishay ul inta iisoo qaatay uu garaac mar bay qaracday anaaba ugu kor imaadaba dhib male hadday maamada ku qaracdo horta iyada xal baa loo heli hadda dhibaato ka weyn baa taale xal kale helaa maxaa tahay waaba hooyada hadday ku qaracdo taa dhib ma arko gabadheedii u horseeda maanta aniga maya anigu in adiga lagu dhiigaaga lagu dhaqayo dhoobinay gacmaha ay xanuunayaan hataa ciidaha iyo war horta gabadhan si xun bay wax xun bay u geysteen maanta had fiir biyahaasaa lagu shubay oo wejigeeda saliid hadduu ahaa lahaa maqaarkayga fuqi lahaa dahabna oo ninkeeda siiyeen way ka qaateen waa fuul sahad sad oo dahaba waa katiig waa jijimi waa gacanti waa siligi lugta dhegashigina ku jira miya ha marka dee aniga mar dhow baan imaaday oo waxan horaan bay socdeen haye gabadhan in badan ay adkaysatay haye waxay tiri dadkan waxay rabaan guriga inay iga saaraan oo waxay dhaheen wax walbana ayaga islaysiiyeen waxay dhaheen anaga gabadhan maxay noo sheegay guriga anaa iskale maamada xilada wiilkiga iskale guriga maadaa iskale waa baxaysa anaa guri lagu qabaa maxaa iyada guriga marka aniga waxaan diidanaa dagaal waxaa inaan kiciyo waxaasan diidanay soomada kale marka ay falkan ku dhacayana ma joogin ani waa maqnaa way nin weyn baa tooqaan gaari gabadhiina adaa la nool maa laba mid samaysa inaad guriga walaasha ka guurto oo markaan anagu imaana gabadha la dhibaatay rag gar qaata aan noqono may hadda ka hor ka wadi rabay iyo inaad adiga guri maxaad u wada waa guri inaan rabin inaan ka sabab maxaad u kaxay guriga sidoo ma laha sidaad uga kaxay guri waxaa loogu galay guri sida loogu galay gabadha guriga iyadaa leh gabadha guriga sida iyada looga tegi mooyaane waa laga kaxay aniga hay dhihi guri ma lagu diirana marka hay dhihi ma la diiran karo lama diiran karo gabadha anaa dhalay anaa inta la-eg anaa jooga ninna garta lagagama daba dhufto heerkaan jooga culimo loogama baahno wadaad loogama baahno shaxyaqaan loogama baahno turubyaqaan loogama baahno garyaqaan loogama baahno waxa dhan anaa isu ah walaa wadaad loogama baahno wax walba anaa isu ah waxaan kaa rabaa marka adiga waxaan kaa rabaa guri xileed baad joogtaa horta maamaha soomaaliya waxay leedahay xidid wada yaalla waa xaar wada yaalla waa xidid wada yaalla waa xaar wada yaalla dee xaar haddii wada yaallana wada uri adiga anigu kuguma talagelin guriga walaasha inaad iska degto oo haddana gabdhuhu ay kugu dul dhigaateeyaan laba mid samee nin edab leh oo walaashii aada iyo aada xurmadeeda iyo wanaageeda uga shaqeeya heerka uu la nool yahayna sharaftooda iyo karaamadooda iyo isku dugooda iyo isukaankooda ka shaqeeya noqo oyna ka ahayn meesha kama tage waxna kama tare ma raba inaad noqoto dhaaf heerkan inta adaan ku leehay aaba hadda meesha kaari aabi dhegeyso ninkii qabay gabadha aab dhegeyso aabo adiga meesha kaari hadda soo istaagtay laba mid ninkaad ku leedahay ama hooyadii iga raraaya ama ani haddan ku raacaya kaama haraayo horta gabadhan waa inaa xiraa waa inaa reerka xabsi ku ogaadaa because dhiigayga maanta soo raadsadeen aan kula hadlo beri markaa dhinta ma ani qeylo rabtiin aan kula hadlo ma xirtaani waxaas aan kula hadlo may ninkaad la hadlayso horta waa kuma adi waa maadaa ay amri may maanaa wax kuu sheegayo kaa odayayn oo gartaadii hawshaada kuu soo dhicin mise adaa amar siin amarku ma siinaysaa uraba kuu sheegay dhegeyso gabadh baan xidhay kaama rabo waxbaan xidhaya kaama rabo waxaad xidhaysa waayo misedoodaad xidhi mise dooshidaad xidhi seed u hadlaysaa dadkan anaa xaqaydii xuquuqdaydi ka raadsanay karaamadaydii sharaftayda ha ku ciyaari waxaan ku leeyahay gabadhaydii baa tahay waxaan kugu soo taliya arag haddaan ku dhaho xitaa hala hadlin lama hadli karti haddaan ku dhaho waxay doonaan kugu sameeyaan la joog waad la joog sababtoo ah aabbaha baan anigu wanaagaaga keliyaan ka talinaya wax kale kama talinaya so wanaagaaga keliya maa wax ka talinaya wanaagaaga un bas gurigan gabadha iyadaa le cidna kama kaxayn karta lagamana diri karo ninkii qabay ama gabadha mar buu u baxay igu yahay raadi ninkii igu yahay waxaasoo dhan anaa xallin haya gartan ani aaba sidaa raba inaa ii samay sidaa rabaa aaba sidaa rabta waan kuu samayna waana kuu samayn jiray weligaa waxaa rabta miyaa gaadii may sidii baan haddana daacad kugu ah laakiin ariga hal mid ah samayn hay dhihin sodohday baan la dirin السلام عليكم هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دhow هاي هذا نفس gurigaaga قربت من هذا waa mar dhawaan cidda soo booqdo ها xoogaa fadhi تليفون بس كمان صهر مرين maxaba
niyow baalkan hadii anigu odayaasha aabow ii fiiriyo haweenka maaragtay aayow ii eeg soo ma arko waa intay telefoon kula soo aadaan aayow ii fiir waxaan soo dhacay muxuu yahay ku dhac waxba akhriyo inaan ku ahay waa macquul bal ii war way sabab cidiisa lagu ah cidi aad iyo aad u fiicnaa meelaha nagana ilaahay nagu barakiyay way barwaaqan ku jiro way walaaladay way markaas ii waraysiintii anaguna fiicannahay hooyo iyo qaraabada iyo koob way ladan hooyo waa joogtaaba haye hooyo iyo walaal waa joogaan dad naga maqan hadda ma jiraan waa ladannahay dee xalku waa dhigay inta dhamaan way wacan shilka yar oo iska dhacay mooyee okay waxaan maamaha haweenka iyo kuwa ragga way qaybsan yihiin waxaa layidhi wax rag loogu mahmaaha ma aha laakiin haddaan mahmaahda soo qaato haweenka hore ee qumanaa ee dawladda ah mid kamid a waxay ku mahmaahday heblahay hadday foolo imaado guda qarsi dhibay hadday fool imaado guda qarsi waa dhintay saa maxaa ula jeedaa waxay ula jeedaa haddii dhibaata imaado wax kala qarin way dhammaatay oo dee dhibaatadii baa la isugu soo bixi way dhibaatadaas jirta unbaa la isugu soo baxay ooma imi gabadhii oo labada gacmood ka gubatay oo hamudhay oo hoogiya baa dhacay oo wax fara badan sheeganaysa yaan imid gabadha hadir ba istaalka keentay khayr allah kusiiyo waxaad kaaga inaad soo daweysad xaq baad u leedahay oo cisbitaal geyso oo kolo meeshay ku caafimaadaysa aad u wado adiguna waxaa la yidhi ido aragoodu waa riyo raggana wuxuu mas-uulka yahay haweenka oo ilaahay baa xilkaas saaray markay haween meel isugu imaadaanna waa haween oo marka la tukanayo waxaa la yidhi haweenka san maa la yidhaha kala hormarin hebel arbay kaa kub weyn tahay arbay barideedu weyn tahay gudooyinkeedaa fiican way ku diriraan waxaas si salaadii marka ilaahay waxaa la isgarab istaagay imaamha yeelanina horay istaagay ayuu isma tujin karaa horay mid istaagaysa male iyadoo garab taagan bay tujin waxa saas oo dhan loo yidhi xikmadda ilaahay weeyaan inayna haweenku is arag oo mas-uul laga yahay oo la kala ilaaliyo oo yaa loogu talagalay way adigoo nin weyn oo oday ah oo aan gabadh siiyey oo aan aabihii ah oo sharaf agteeda kule iyo karaamo sodogay baa taa yaa tahay sodognimada inaad waalidnimo ii qartaa kasii wacan shaki kuma jira gabadha inaad qabto taas dadka hadda u sheegi mayno aan usoo laabtee haweenkan inay sida isugu xumaadaan dhibaatooyinkan dhacaan maxaad uga hortegi weyday ma hawshaan dhacday iyo kuwii ka horreeyay war wax sidaa u weynba ma ahanba gabadhaadu midhaa sideeda hawl kale u raadinaysaaye wax sidaa u weynba ma gaarin dhakhtarku wuxuu noo soo qoray maxay ahayd ma ayadaan weydiiyaa war maxay ahayd waxay ahayd qalajiye iyo maxaa loo soo boomaato wax weynba meesha ma oliba biyo inay qabowaayeen baa loo malaynaya ay ku dardarayso gabadha adna waxaa leedahay waa gabadhu waa baaday waa umudha waka ninka aad la hadlayso waa ninka sotonka ka ilay waana ninkii gabadha dhalay horta gabadha haddayna biyaha gacanta iskaga dhigi lahayn wejigeeda ku aadi lahayd moogtay dhaawac weyn inuu soo gaari lahaa laakiin gacmaha saa ay dhahday gacmaha ay ku daateen waxaa laga yaaba xataa gabadha inay kula kuftay ayna dagaalba ahayn cabshuuri way maqlaysa waa ku maqlaya gabadha anaa dhalay waa adaa dhalay adiga hooyada iyo walaasha hadday qaali ku yihiin oo ay kula kuftay ay kaa marayso aniga gabadheedaa qaaliya dhaawac baa gabadhayda ku yahay dhaqankeedaad leedahay dhiigeeda meli inaad ku dheeshin xaq meli adiga hooyada iyo walaasha intaad isu halkaa way meesha isku qabsanayno gabadhaada waxa maalintii aan kaa guursanayay yaradka ugu badnaaba iga qaadatay marka ma yaradkaad ka goynaysaa maya imaba oran kartidba muxuu ahaa dhiiggeeda melihi dhaqashadeedaad leedahay ima oran karti ereyga gabadha magteeda kaama qaadan ade gurigaygii wey waxaana igu soo gashay waa runtaa waa gurigaagi waa gurigaagi laakiin gabadhan dilin ay meesha joogta anaa dhaa waxaa qaadatay annagana geel iyo waxa naga qaadatay iyo faras iyo waxa naga qaadatay iyo qori geel iyo faraska iyo qoriga gabadha haddii cidi dhiiggeeda leedahay anaa iska leh dhegeyso baro weligaa koob shaaha ma u shubtay gabadhaa in yaraan kula ay rabto koob shaaha ma u shubtaydaas waxbaan kaa dhigay way soo koriyey iyadoo naag aho intaad aragtay le oo sharaftaas iyo karaamadaad aragtay lahaan kuu keenay ayana waa aragtay intay la ekatay intaasay la egtay waa qodob hadalka igeso haygu noqon nin aan og haddii ilaahay idma hayo waxaan ku iri xoolaha aad bixisay mise iyo dilka gabadha waa kala laba xoolaha aad bixisay adaa ku bixiyey istikhyaarkaagaad u bixisay anigu intaan meel ku istaag kuma dhihin intaa isii adaa yidhi
reerka iyagoo dhan weli waxaad tiri muxuu ahaa ilaa aad geeli iyo waxaad xoola haysataan oo dhan xataa neefna maada siin adigu nagumada darin kuma afgaran oo odayaasha ya adigu wiil yar baa tahay aamus adigu kuma afgaranayo odayaashaadi odayaasheedu way joogaan niman reer line baa moodaan waxaan kaa rabaa inaad odayaashaadi kuwii waxgaradka ahaa aad ii keento waya adiguna odayaashaada soo kaxayso diyaar anigu odayaasheedii waan wataa anaa oday kaa ah macnadan oday kaa ah saas haddii aniga oday iga tahay sidee odayaashaada soo kaxaysa u leedahay bariis baad raadinaysaan weli haddii maxaad ku celisay xoolihii aad ama bariga gabadha aad oreysiisa aad qashay yaad xisaabisay wiiliyow yarka dad aan la xisaabtamo igu yar adiga kula xisaabtamo way noo ahaanaysa saasaan isku ognahay haye iisoo sheeg markaad odayaashaadii keento way waan kala baxaynaa sidan iskuma daawanayno gabadhayda la dilaya waxaa leedahay gabadha waa kaala tegaya maya gabadhayda gurigeedii joogaysaa xitaa adaan cayrin waa cayrinaya xitaa ma furi kari igamaada maqal anaba taa kula xitaa haddaad dabcdo ma cayrin kari igamaada maqal kaama maqalba xitaa waxaan ku leeyahay wax walba hadday dhacaan guriga kama tegaysa gabadhayda way joogaysaa laakiin xuquuqdeeda lagu tuman maayo hadda ugu meesha dad baa kaa joogay dad tiro badan baa kaa joogay waan ogahay waan ogahay wiilkan yarka haddii aad kuusuma ogol yahay oo waagu noo imanayay iyada waxay ugu tiri gabadh buu soo dilay amba walaashii wuu sigay maalin dhaxaas alaabna waa naga maqanta maxay xoolaha maqan kuwa aad yaradka u bixisay miyaa mase xoolada dhacay magaaladoo dhan baa og wax lagaa dhacay miya maya gurigay ku dhex maqan yihiin dad joogaana qaaday haye annagana dusha weydi maxaa la qaaday dheh ma lagaa xaday ya wax la xadayba ood wiilkan u haysato saydigaa adigu ma oran wiilkaaga u haystaa igamaada maqan haye laakiin dadna waa kaa joog adaa waxay tiri moogtaa odagii raadso dad baa iga joogo gabadhan anaa dhalay oo wiilkan anaa dhalay oo adiga anaa sodda kuu aho waxa kale aad ka hadlaysa muxuu yahay waxba kuu sheega odayaalkeesa ay tiri sooma adiga abo odayaasha yaaqay nood baxinay haye haddaa wax la isku ogeyn inawad maxay tahay hore lagu kufinaya inawad annagoo dhan inawad odayaashaadi soo dhawow ade keenso wiilkan soo guriga ma joogo awal horse ma joogo halkiisu ii joogaya gabadha halkeeda ii joogaysaa lixdan kugu haystaada saacaddaa laga bilaabo ilaa aad odayaashaada iiga keenta halkooda ii joogaya ilmahay wax karaama darro loo geysan karana ma okay way dhamaa haddaa wax la isku ogeyn see la isku tuqujabinaya haye way way anigana hooyaday baan keensanayaa iyo ayeeyinkood anay noo keenaysa kaala adiga isku filan sama kaala hade iyaan la kala garanayna 24 saac indhaa xiran waxba intaa 24 saac indha xiran lama kala garanayo saasaan kuu iri soo isku filan maaha adig anigi waaye maanta xaggee maanta iskuulkii waxaasa ku mashquulsanaa ayaanta waa ku arki weyneedo ayaamaa iskuulka casharkii la iga soo siiyo aan mar walba dhahaa exam baa laga qaada markood maasha allah shaqadaada inuu haysataa maasha allah waa isku wadaa labadu xaggee marka iskuul baa iyo iskuulka ku geeyey yaa iskuulka ku geeyey anaa isgeedi wataa aan hodanka fasax qaatay war way ii kaa sheegtay hodan saa maanta ma aadaysaa goorma waa diyaarsan tahay be goorma aadaysaa hadda dhawaar waa inaa aadabo hadda aadi rabo xoogaa group wax ka doonay jika soo wacday Soomaaliya baa kuu yeeraatay haye marka waxbarashadaada iska wada guriga shaqadiisa waa wada wax kale ma jiraan hay wax kale ma jiro may aniga laftigaaga waa fasax ku siin lahaaba annagoo qofka wax baranaya dunida ugu jeclaa hodan sida ugu jeceshay Soomaaliya anaa la dardaarmo iri qofkii aad aragtido wax barasho raba saacidee anaa ku iri dad fiican aad timid abaala idin haayo saacadayda aan moodo inay maqan tahay taada iyo tayada isku ekaada waaba shakiyo dhegayso saacadda waa baxaysaa hadda waa baxa iskuulka timekiisa aad joogaa waa gart waa yahay waxaad samaysaa laba maalmood fasaxan anigu laftigay baan ku siiyey والله هذا السيسر alla marwada reerka waxay ku siisay moogtahay waxbarasho anna waxaan ku siinayaa 2 days والله waxa idin dhahay magal dad wanaagsanaatiin hadda iskuulka ka daahaya haye هكذا هي هي هكذا ما الباب كده عادي
نصر ستة في عنده حالكم ما شاء الله. halo halo haye waxaan ku weydiiyey hee walaal gabadhii maalintidood ii keenaysa oo dabarka dahabka tabarcalada ka qaadan jirtay ma dahabkii baa rabtaa inaa iga soo iibisid haa waan kaaga soo gadaya iyadii baan kaaga soo gadaya waxaan rabaa inay soo tusto meeshii dahabka lagu gadayey ama keeda aan laftigiisa ka soo gadaykaas keebay deganeed ayadu nambarkee abbo waxay degan tahay dabaqa saddexaad dabaqa inagu dhegeyso ma garanaysid oo greenka ku jira qaybta saddexaad baa fuulaysaa waaba laba iridda dhanka oo midigta kaa qabanaysa waana saddexaadka midigta san midka diyaar wey mise kaa xaggan waa waaba ka jaraanjarta oo way ka soo horjeedaa meesha liftiga lagaga degayo ee saa uga soo horjeedaaba oo diyaar wey kaaga soo gadaya haye aboowe haye se u faraxsanta anaa jecel inaan kuula sii farxeen waa wareeyey dahabkii baa liisoo wadaayay dahabkii baa liisoo iibin rabaa alla ilaa walaalkee iga qaadin farxad iima dhinno maanta xaggee aadaa naya usoo sheega halkaanaa la gelaya iskuulka waa kan soo iskuulka la barto